banaanbaxyo rabshado wato ayaa gilgilay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Banaanbaxyadan ayaa imaanaya kadib markii askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya uu dil bareera u geystay wiil dhalinyaro ah ka oo wada ka ahay gaadiidka loo yaqaan mooto bajaajka. Sidoo kale waxaa la sheegay wiilka la dilay in la dilay nin la sheegay in uu yahay abtigiis. Banaanbaxyaasha oo careysan ayaa la hadlay warbaahinta waxayna eedeynta ugu badan dusha kaga tuureen dawladda Soomaaliya. waxaan u cabanayno saaki ilaa hadda u taaganahay laba nin halkaas naga taalameyda maalin walba waa nala dilaa Soomaaliya nahay muwaadiniin nahay waxaan bixinaa cashuuraan bixinaa maalin walba waa nala dilaa baarkaas aan ugu dilaa ninkii la dilina madaxtooyada waxa gishta Cabdiraxmaan Yariisow madaxtooyadaas gishta ninkii dila ما قرأت برتانا نكل لكين عبد الرحمن يريس أسكيرين كتير ماينو ما نسعنا ما لحتوه فرماجنا ما لحوينا ما بنوا هامبا وعسوية قشن كاس مارا جوج أنا ما بنوا هامبا بعرماك حتى هاي ماله برتان هاي مال بناك إن الشراء دولن الشراء أصلحك رادنا وأجنه أنت هاي مالنا ده كين الديران لا وشراء موي حبض مقطعنا حتى أنا كل كلام لقدر ماشان ميت كلام أنت لقدر تربونك ملا لقدر لما أنت هلا دي معي نال وحن وماشى كل دقائق يا مجرته إلا عبد الرحمن يريس وأنت أسكي ماذا وحكي سعنا ولا عليالو أنا وانا الدباتية وانا الدلا وانا النوعة وحكستو دباتة هذا صعد حبتها كركينا كيارس حبتها كركينا كيارس صاحب كان دقو إلهي هون حريستو وحوي وقتي ساعة أنت كويكاي أنا ساكا بنون إسل ديلي لبي 8 ساعة هل ساعة إبران سوكا لا تقني أنا نسقط كل ذا هوس أقول أبتي أسين حافظي سو هذا ما قرت مركا أسيجي أبتيجي هذا معناه إلا الدلي سلام مركي حبدي أم قليل إيش شيء أصلا ماشي على أنا أقوم هذا إلهي هون حريستو وحكي الله شقنا ملأ أنا بنون إسل ديلنا إلا يو نكان أنتوا كسب عيال كنا جاي راي والله كنا جاي راي واي أنت أنا إسل ديليني عيال كده مدو ديلو واي حافظوا دقيقة دقيقة واي marka Allah u naxariistaniyo dooyinka naga xirnaa jireen hadda waa dareemaysaa codkayga xiriya xanaaq darteedu xiriya balse wuxuu sababay wadooyinka xiran kadib markii saaka la dilay wiil darawala oo mootola iyo ninka saarnaa darawalkii oo basjeerigi kadib dagaalka wiil abtigiis waa waliba saasoo ku bilowday haddana aan kula hadlay laba nin la dilay oo ciidanka dawladda naga dileen waliba kuwa isgooska walaag isgooska bakaarina lagu dilay saddex marina waxaan u maleynaynaa in ay sii socon doonto dagaalkan shacabka iyo ciidanka kala noqon doonta cashuur maal bixiya wax walba bixiya wada lagu mashaqaysan karo meel lagu mashaqaysan karo siduul baarlamaanka waa iska shirayaan maalin hoos iyo marxadii ku jiraan mukeef anakan laamigana ku dhamaan saaxib iyadoo muddooyinkii ugu dambeysay dhalinyarada kaxaysa gaadiidka bajaajka ay ku soo laalaabanayeen dilalka loo geysto deeq macallin Jinow Bulsho TV Muqdisho.